الحمد لله رب العالمين كلن كنا maanta waxaan doonayaa inaan kaga hadlo doorashadii ka dhacday dalka Jamhuuriyadda Somaliland 13 bisha November ee sanadka 2017 doorashadaasi ama codbixintaasi waxay noogu dhacday sidii ugu quruxda badnayd intii aynu doorasho soo galeynay taasoo kaliya maaha waa ogtiinoo doorashadani waxay u ekeyd ama la mid ahayd kuwa doorashooyinka wadamada waaweyn ee dhinaca dhaqaalaha ka koray ee dhinaca dhaqanka taariikhda leh ee aqoonta badan ay taalo sidoodiiba dalka ay uga qabsantay maanta waxaan u mahadnaqayaa si weyn ugu mahadnaqayaa shacbigii tirada badnaa ee ka codeeyay goobaha kala duwan ee dalka oo dhan shacbigaasi waa ogeydeen sharafkii uu muujiyay waa arkayseen inuu ahaa dad waqti hore kuyada yimi oo safafka ku jiray oo rag iyo dumar kala socnaa oo si adaab iyo anshax la u joogay oo aanay askari kala celinaynin oo aan dhangal lagu kala celinaynin oo aanay laba isxaganaynin oo aan isqardoofaynin oo aan cadceedda iyo kuleylkeedu dhibaynin oo aan haraadka iyo maalinta dhan ee ay meesha taagnaayeen aanay dhib ku haynin ee adkaysi u lahaa taasi marag waxay u tahay inay rabitaankooda meesha ku joogeen inay rabitaankooda doonayeen inay ku doortaan hogaamiyaha ay doonayaan doorashadan waxay kaga duwan tahay doorashooyinkii hore aynu qabanay dhowr arrimood oo waaweyn oo tiirar ah iyo qaar fara badan oo kale oo aan la soo koobayn oo dhinaca farsamada ah marka ugu horeysa waxaynu nahay wadankii ugu horreeyay ee Afrika ee ku gala nidaamkan sawirka indhaha doorashadan oo kale waxaanu nahay tijaabadii ugu horeysay ee Afrika laga sameeyo sababta awgeed baan dunida oo dhan indhaha ugu haysaa Somalilandna maqaamkeedii ama staatuskeedii kor bay u qaaday doorashadan gaalkii indhaha inaga rogan jiray ama ninkii cadaaya indhaha inaga foorurin jirayna maanta wuxuu ku qasbay yahay inuu labada indhood bay nagu eego oo uu qiro inaynu nahay wax jira doorashadan waxay kaga duwan tahay kuwii hore awal hore dalka qaybo kamida baynu ka qaban jirnay doorashooyinkeena waa ogeydeen dal iyo dad baa inaga maqnaa fara badan oo aan ka qayb geli jirin doorashada madaxtinimada dalka maanta alxamdulilaahi rabbil caalamiin axmed siraayo madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland iyo xukuumaddiisa iyo xisbiga kulmiyaba waxay ku guuleysteen in maanta dalkii jamhuuriyadda Somaliland iyo dadkiiba inay dhan yihiin oo aanay jirin meel inaga maqan iyo reer inaga maqan iyo qof inaga maqaniba kooxihii siyaasadeed iyo jabhadihii siyaasadeed iyo wixii dalka gudihiisa ku kala aragtida duwanaa oo dhammi maanta iyagoo isu dhan ayay ka mid yihiin talada dalka oo ay joogaan oo ay ummadina codaysay min taleex ilaa iyo saylac alxamdulilaahi rabbil caalamiin waa wax lagu faano waa wax uu dafiri kari waayeen kuwii aynu moodayna inay ishayno oo ahaa Soomaaliya oo ay ogtihiin qaybaheeda kala duwan oo dhammi inay hambaliyeeyeen waa ogtihiin dunidii kale oo dhammi ee baarlamaanka Ingiriiska iyo meel kasta oo kale ay ka hadleen arrimaheena waa ogtihiin in saxaafadii dunida kuwii ugu afdheeraa oo dhammi ay indhaha ku hayaan oo ay ilaa wiigii u dambeeyay wuxuu ka qorayeen ama wax ka sheegayeen doorashadeena waxa kale oo ogtihiin in goobjoogayaasha caalamiga ahaa oo 720 wadan ka socday waxyaabihii ay dhaliil sheegeen aanay ahayn kuwo culays weyn ku haya ama la oran karo waxay wax u dhimayeen cadaaladda doorashadu ay leedahay doorashadan waxay u dhacday si xor oo aad arkayseen qofku ku yuga isagoo xor uu ku jiray waxay u dhacday si xor waxay u dhacday iyadoo qofku uu raacay nidaamkii sharciga ahaa oo komishanka doorashooyinku ay hagayeen waxay u dhacday si xor oo waxay u dhacday iyadoo qofku intuu halkii loogu talagalo uu galay uu keligii calaamadinayay qofka uu doonayo iyo musharaxa uu doonayo maanta waxaynu joognaa komishanka doorashooyinku dadaal fara badan bay sameeyeen ilaahay raalliha ka ahaado xukuumadduna dadaal fara badan bay samaysay oo amniga dalka min gees min daraf ilaa daraf waa ay sugtay ilaahayna wuu la qabtay ilaa iminkana natiijadii doorashadu may soo bixin laakiin maxaa dhacay waxa dhacaya talo xumayaal ayaa doonaya inay dadka qaybo ka mid ah geliyaan wax rabshad waad arkayseen
qaybo ka mida magaalada Hargeysa ama qayb ka mida iyo Burco qayb ka mida iyo Ceergaabo in ka midaba waxa ka dhacayay mudaharaado fafaalahoodu aanu fiicnay waxaan leenahay dalkan dagaal sokeeye oo damba kama dhacayo dagaal sokeeye oo dalkan ka dhaca waxa ugu dambeysay 84kii inan dambe oo 94kii inan dambe oo waxbarashadiisa ku waaya oo qaxoonti labaad gala oo Hargeysa mar labaad laga baxo Burco mar labaad laga baxo Ceergaabo mar labaad laga baxo wallahi baanay dhacaynin ilmo yar iyo inan yaroo dambe oo gurigooda inta laga saaro waxbarashadeeda seegta aroos dambe oo xalay aqal galay oo maanta la qaxa la yiraahdo oo dambe ma dhacayso umul dambe oo inta xalay toolo umushay maanta la yiraahdo ilmaha ilka ku qaadan ma dhacayso waxaan sabab ay u dhacdaa baan jirin madiin baynu xoreynaa ma dal baynu xoreynaa musadooq dadleeyahay iyo tartan inama wada reer shaqo saxaaqi ay galeen ayaa dhiigooduna u daadanaya saddexdeena waa isku qoys kii halaabana waa kii kale waana madaxdii dalka shalay toolana waxa hayeen reewdana saadabana waxa qabanayeen reer laascaanooda marnaba dhiig ku daadan maayo marnaba dhiig ku daadan maayo jamhuuriyadda Soomaaliland way jiraysaa ninkii damac ka hayo inuu tan khalkhal soo galiyo oo uu soo dhex raaco oo tala Muqdisho leedahay soo dhex dhigo oo uu dowladana yiraahdo halkan ay rabshadihii ka dhow yihiinowna adeer suurtagalku maaha inta badan waan ogahay ee wadani joogta ee tala qabeenka ee waayeelka ee ganacsatada ee culimada ee siyaasiyiinta ee sidan aan uga damqanayno kala uga damqanaya waxa dhacaya laakiin waan ognahay inta yar tirada yar ee doonaysa inay nidaam kale iyo wax kale uga faa'iideeyaan mar kale waxaan doonayaa inaan uga digo dhalinyarada war waa idinka kuwa mustaqbalka iska leh waa idinka kuwa la doonaya in lagu ciyaaro waqtigooda waa idinka kuwa la doonaya noloshooda in lagu dhaafiyo waxa bari qoomameeyaan midna waa ogaanaysaa labada musharax ee maanta waad boobtay isku qabtaa saa dambe waa wada arki doontaan iyagoo bunka wada cabaya marka dhowr idinka idin ka mid dhintaan ee la aaso ay dawladana ku qudbadeeyaan waanu heshiinay intii dhimatayna Ilaahay ha u naxariisto maalin walba mataasina ku jireen war ku jirimeyna taas way heshiin doonaan inaguna heshiiskaas inaynu sugno oo aynu ka mid noqono oo aynu qayb ka ahaano wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh